boqolkiiba 90 dadka milyaneerka waxay ka sameeyeen wax loo yaqaan real estate kuba qaar waxay isticmaalaan strategy loo yaqaan fix and flip aniga waxaan sameeyaa wax loo yaqaan buy and hold kuba qaarna arrimo badan ay sameeyaan taas waxaan ku sharaxayaa maanta fix and flipka nidaamka uu shaqeeyo si aad u fahanto walaal soo dhawow magacayga waxa la yiraahdaa Daahir halkan waxaan kaga hadlaynaa real estate investment fix and flip Airbnb arbitrage wholesaling iyo waxaan kaga hadalnaa oo kale sida online lacag uga sameyn lahayd iyo side hustle fara badan oo dadka lacagta online uga sameeyo soo dhawow insha Allah wax badan ayaa ka faa'iido doonta page-kan na soo follow garay haday soo subscribe garay video-da ka badan 2 daqiiqo waxaan soo dhigaa YouTube-kayga aad soo subscribe garay insha Allah okay waan ku bilaabayaa marka koowaad waa maxay fix and flip guri dayacan ayaa soo iibsanaysaa gurigaas wax badan ay ka qaldan yihiin kadib waa dayactiraysaa si qiimihiisa kor ugu qaado kaasoo ku ogolaanayo inaad ka samayso lacag 100,000 ilaa 200,000 oo faa'iido ah hadda waxaan ku sharaxayaa nidaamka u mari lahayd faa'iidooyinka iyo khasaaraha fix flipka uu leeyahay marka koowaad faa'iidooyinka leeyahay waxa kamid ah lacag ayaa ka samaynaysaa adiga ayaa controlayo xirfad ayaad ka baranaysaa khasaarooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah haddaad iska saxin waxa loo yaqaan renovation costiga lacag kama samaynaysid hadduu suuqa isbedelo lacag kama samaynaysid hadda sharciga iyo nidaamka la rabo aad raaci wayso lacag kama samaynaysid sidee guri ku soo heli lahayd ayaan ka hadli doonaa hadda website la aada ayaa jirta guryaha saad uga soo hesho sida kuwa qaar dadka qaar ay garanayaan website-ka Zillow oo kale Realtor Redfin website-daasi waa free waa aadi kartaa oo ka soo heli kartaa hadda rabto website aad lacag ka bixiso aniga isticmaalo kale PropStream jira wax loo yaqaan Investor Lift ama waxaan isticmaalaa multiple listing hadda real estate agent aad tahay arrimahani marka fiiriso kadib waxa fiirinaysa waxyaalaha targetka uu noqdaa waa guryaha foreclosure pre-foreclosure ama probate kadib wayna guryaha marka soo hesho aad soo ogaato kadib waxa ku sameynaysa wax loo yaqaan property evaluation wayna soo ogaato wax loo yaqaan ARV after repair value marka taas sameynayso waa inaad ogaataa zip code-ka aad guriga ka iibsanaysa ugu muhiimsan si aad u soo ogaato wax loo yaqaan ARV ama after repair value waa inaad isbarbardhigtaa guryaha noocaasi la midka ah hadduu guriga 2 qol yahay hadduu yahay 2 qol uu yahay hal musqul uu yahay 1400 square feet oo la dhisay 1980 waa inaad guri noocaas kala raadaysaa waa inaad soo ogaataa ARV-ga aniga isticmaalo waa wax loo yaqaan 70% formula haddaad guri iibsato 120 ku iibsatay maanta oo aad ku dhufatay 70% waa 84,000 guriga ku iibsanaysaa kadib waa inaad ka jartaa lacagta aad ku dayactiri lahayd 45,000 doo noqoto kadib qiimaha ku soo bixi doonto badana dadka qaar waxay isticmaalaan ilaa 80 to 90% rule wax la isticmaalaan laakiin arrimahan dhan hadaa rabto inaad barato oo si fudud u barato website-kii aad kartaa Saxan Investor waxa isticmaala investment analyst tool aniga isticmaalo oo waxa ku analyze garanaya jira qaybtan kale waa qaybta inaad finance gareysarta guriga iibsarta sidee ku soo iibsan lahayd bangiyada caadiga toos u aadi kartaa hadaa rabto ama waxa isticmaali kartaa wax loo yaqaano home equity loans oo hadii aad leedahay wax loo yaqaan guri hadda aad hore u iibsatay guriga qiimihiisa kor u kacay lacagta aad qiimaha kor u kacay ka soo saaran kartaa guri ay ku iibsan kartaa ama hadii kale waxa sameyn kartaa wax loo yaqaan private financing qof ganacsada aad garanayso kale ayaa ila shaqeeyay kartaa asaga ayaa guri ku iibinayo faa'iido qaybsanaysa ama waxa isticmaal kartaa wax loo yaqaan joint venture oo adiga asxaab kale lacag isku darsanayo ama ayuu tahay noqoto ama sidii ha noqoto saas lacag ku sameyn kartaa marka guriga hadda waa iibsateen waa inaad raadsaa contractor guriga la dayactiro u baahan yahay hadda qaybtan waxaan ka hadli doonaa contractor saa u soo heli kale laba contractor ayaa jira mid license haysta jira iyo mid license haysanin kan license haysanin lacagtiisa way yartahay waxa kamid ah dadka Mexicaanka iyo dadka wadanka sharciga haysanin ayaa kamid ah laakiin license caadi ah raadinayso qof haysto lacagtooda way badana website fara badan aad kartaa hadda Google aad tagto alla contract near me waa arki doontaa Google wuxuu ku soo saaray waxyaalo fara badan hadda rabto wax qiimo jaban aad raadinayso waxa aadi kartaa website loo yaqaan Craigslist ayaa aadi kartaa kaas oo ku ogolaanaya inaad soo aragto waxa ku post garanaysaa ad oo ah $5 wax noocaas kugu charge garan doonaan $5 baa bixinaysaa kadib waxa ku soo gali doona email fara badan oo ku leeyahay aniga ku shaqeynaya aniga ku caawinayo kadib wasbar dhigaysaa laakiin hadda doorato waxaad qiimaysaa marka koowaad dayactirka aad dayactirayso ma wax fara badan ba haddii ka badan tahay lacag $10,000 waxaan badanaa dad kula taliyaa inay sameeyaan contract license haysto inay sameeyaan haddii lacagtu $10,000 ay ka yar tahay badanaa aniga waxaan isticmaalaa dad caadiga ah oo handyman ah oo aan usually Craigslist mostly ka soo helay
soo kadib hadda gurigii waa dayactirtay waxay waa hagaajisay qaybta kale waa inaad soo ogaataa real estate agent ayaa u baahan tahay gurigii dib inaad soo iibiso aniga kula hadlayo real estate agent ayahay laakiin haddaad aniga aad i hayran ama qof kale hayrato it doesn't really matter ciddaad too hayran kartaa waxaa samayn karaysaa ood u baahan tahay real estate agent waxaad tegi kartaa aniga badanaa boqolkiiba 80% google ayaa aadaa dadka qaar waxay aadaan groups aadi kartaa kasoo heli kartaa arrimo waxaan dhan kuu sheegaya dhan dadka halkaasi ku wada jiraan real estate ku jiraan online ku wada jiraan haddaa google aado adhaada real estate agent near me google wuxuu ku tusayaa review ku tusayaa real estate agentada ugu fiican laakiin haddaad aaminayso qof Soomaali ah raadinayso reliable real estate agent real estate investor aniga ay iimaan kartaa gurigaada dib ayaan kugu iibinayaa marka hadda gurigaada dib ayuu iibinaysaa badanaa guriga waqti ayuu qaataa saan dadku u sharaxa badanaa ilaa wuxuu qaadanayaa 3 bilood inuu qaato laga yaabo guri lagu iibiyo mararka qaar laga yaabaa suuqa ay ku xiran tahay in lagu iibiyo 1 bil ama 2 bil gudahooda real estate agent ayaa handle garanayo arrimahaas oo dhan hadduu inspection u baahan yahay hadduu appraisal u baahan yahay everything wax ka dambeeyo adiga ma taabanaysid real estate agent ayaa kala wareegayo so fixable saas ayuu shaqeeyaa laakiin waxa ugu muhiimsan waa inaad guriga soo heshaa guriga oo cheapka that's why most kula taliya 80% of effort inuu noqdo guriga inaad soo hesho dadka contractor ala shaqeynaysan waa muhiim dad fiican la shaqeysa guriga si fiican u hagaajiyaan saarabto inaad barato real estate investment sidoo uu shaqeeyo dadka fix and flip ka Airbnb arbitrage-ka website-kayga ayaan dadku ku train gariyaa si toos ay u bartaan iyagoo aan xirfad u baahneen inay college waadaan ay bartaan dadka qaar dhalinyarada qaar aan train gariyo wholesale-ka hadda wiil dhalinyaro oo high ku nool ay ku nool Soomaaliya already hadda wuxuu sameeyay 18000 one property wholesale gariye so waa xirfad waaye uma baahnid inaad college aado haddaad xirfadahan barato haddaad rabto إن شاء الله نسوي فولو قري هذا يوتيوب كدا فولو كدا ونسو يوتيوب كدا ونسو إن شاء الله نسوي سبسكرايب قري هذا كدا ونسو تيك توك إن شاء الله فولو نوسو قبو وحبنا كفايدة إن شاء الله وين سلامية